والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزيرada xildhibaanada labada gole taliyaasha ciidamada taliya Mahad Cabdiraxmaan taliya Sulub iyo dhammaan taliyaasha talimaday dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan lagu daahfurayo riwaayadan qiimaha badan saxaafadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. بعد السلام روايدا waxay maxaa lahayn soo xusuusisay dhinacyo badan oo xaaladda waddankeenu ku sugan yahay. waxaan daawanay kastiya inta aan joognay dadaalka iyo juhdiga ay hormuudka ka yihiin ciidamadeena qaranka, madaxdeena dowladda iyo shacabkeena ee waddankeena loogu xoreynayo khawaarid. marka wax aad loo bogaadin waay. waxaan daawanay geesiyaasha furunta joogay, madaxdii qaranka oo furunta la jooga, khawaarijta soo dhiilaysa waddankii oo horumar iyo wanaag, ganacsatadii iyo maxaa lahaay ciidamadii oo isku duuban dhammaan waddankii oo cagta saaray waddadii caddeyd iyo horumarka ayaan daawanay. marka waana xaqiiqda dhabta ah hadda Soomaaliya ka jirto way. waa hore haddii khawaarijta maxaa lahaay Soomaaliya ay dhihi jireen, hadda maanta waxaa lagu bacsanayaa maxaa lahaay fariimaha inta dhimanna waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in looga saaro. waxaan ognahay khawaarijta inay ku qaraabtaan diinta islaamka aysan shaqo ku lahayn. waxaan ognahay khawaarijta inay beegsadaan qof walba waxgal leh oo ummad Soomaaliyeed ah. culimadii ay laayaan, masaajidda albaabkooda ku dilaan, waxay sameeyaan maxaa lahaay ay ficil oo xun ayay sameeyaan. injineeradii, culimadii, dakaatiradii dhammaan ayay beegsadaan. marka inta culimo ay laayeen laacada dawla xasan way lagu soo koobi karo. Soomaaliya gees ilaa gees waxaa ka mid ah waalidkeeda oo qof caalim ah, sheekh ahaa, masaajidkii ay gadaashiisa ku dugteen ay albaabkiisa ku dileen. marka dhammaan maxaa lahaay culimadii Soomaaliyeed furmaa ay maxaa lahaay masaajid albaabadooda ay ku beegsanooyeen ayagoo sujuudsan ay dilayeen. waxaad ogtihiin masaajidka oo ah gurigii ilaahay, beydkii ilaahay oo ilaahay uu yidhi wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada ayaa ay qarxinooyeen. waxaan ognahay masaajidka daarulnicma ee shacabka Soomaaliyeed ay dhisteen inay qarxiyeen, masaajid badan kale ay qarxiyeen. masaajidii qaarkooda waxay u bedeleen meel maxaa lahaay lama degaanaha male oo aan lagu dukun oo baad ay ku uursadaan. marka kuwaas afcaashooda qaabka daran oo intaas aan soo tilmaamay iyo in kale xun waxay tilmaamaysaa inaysan diin shaqo ku lahayn. marka shacabka Soomaaliyeed, ciidamadeena qaranka iyo shacabka say isugu duuban yihiin iyo dadaalada ay wadaan aad ayaan u bogaadinaynaa. geesiyaasha Soomaaliyeed ee furmaha dagaalka ku jira oo caawa nabadda anta aan ku fadhina ilaahay ka sokow ayaga sabab u ah oo maxaa la hadda dhaxanta iyo roobka iyo dhibaatada inay waddankan ay ka badbaadiyaan khawaarijta, cadowga ay ka difaacaan u taagan hamar aan u sacbina. waxaan leenahay waa mahadsantihiin. waxay ku sifooween xadiidka nabi sallallahu calayhi wasallam. nabigu wuxuu yidhi suubanaheena caynaani laa tamushuma annaar, laba indhood maalinta qiyaama naar ma taabanays. labadaas indhood waxaa waye caynun bakad min khashyatillah, in ilaahay soo xasuustay ee oysay. ilaahay markay soo xasuustay oo cadamadiis iyo weynaantiis markay soo xasuustay kadib oysay, ishaas maalinta qiyaama habaaska naarta iyo kuleelka naarta ma arkays. isha labaadna waxaa waye wa caynun baatat taxrusu fii sabiilillah, in caawo soo jeedta sababta ay soo jeedina ay tahay in ummadda ilaahay ay ka ilaaliso cadowgii khawaarid. tan labaad waxaa ku sifoobay maxaa lahaay geesiyaasha qaranka ee meel walba foomaha iyo jabwaanjiri joogo ayaa ku sifoobay. marka walaalayaal ciidamada qaranka meel walba ay joogaan waxaan leenahay hambaliyo shaqada ay ku jiraan cibaado waay. qofka markuu keligiis dukanaaye ajarka asigunbaa helaaye. laakiin markii maxaa lahaay dagaaluu ku jira, jihaaduu ku jira, jagboyntii uu jooga, kii qaax soo gudbinayo uu ka ilaalinayo muslimiinta
qofkaas wuxuu ku jiraa camal jamaaci wuu ka ajar badan yahay kan keligaad aad guriga ku cibaadaysanaysid marka waxaan aad u bogaadinaynaa ciidamadan weliba ay joogaan qaybahooda kala duwan milatariga booliiska asluubta nabad sugidda qof walba waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaad gudinaysiin waajibkiin marka waajibkiin idinkoo gudinaysiin ayaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin walaalayaal soomaali maxaa lahaa ilaahay wuxuuna siiyey waxyaabo badan oo aan adduunka lagu haysan horta kuwa waxaan nahay muslimiin waxaa waaye ahlu sunna ah shiicaniguma jirto muslimaa nahay ahlu sunnaa nahay waxaana boqolkiiba boqol madhabteena shaafici waay caalamul islaami meel laga helaaye sifadaas ma laha sacuudi oo tan leh oo xarameenka ay ku yaalaan shiica joogta wadamada islaamka inta badan maxaa lahay gaalaa joogta yahuudaa joogta wax kalaa joogo kuwa diiniina laakiin soomaaliya sharaftaasa ilaahayna siin tan kale soomaaliya waxay ku taallaa adduunka meesha ugu istiraatiijisan adduunka ganacsiga inta badan hawadana ma mara dhulkana ma mara inta badan ganacsiga wuxuu maraa badda soomaaliya waxay maxaa lahay xukuntaa baabulmandab oo isku xiro gacanka maxaa lahay badda cas iyo gacanka cadmeed haddii soomaaliya awood leedahay marinkaas waxay ka helaysaa canshuur aad u badan dhaqaale aad u badan ayaa naga soo galaya waxaa waaye ay adduunka isu socodkiisa maxaa lahaye waddamadan carabta gaaska ay soo saaraan oo yurub iyo maraykan iyo israeli loo qaada wuxuu maraa gacanka cadmeed baxrul axmar u maraa marka si ay soomaaliya isnabood ugu yeeran cadow badan ayaa soomaaliya inay daciif ahaato isku duway marka soomaaliya markii la arkay inay ka guulaystay khawaarijtii oo khawaarijta ay baabaa kusii dhow yihiin oo neef dhintay rafidkiisa qis hadda ay samaynayaan neefku markii la gowraca ayuu ugu waafasho badan yahay marka khawaarij hadda waxay ku jiraan neef gowracan waaye kistaan yar ay samaynaan aa ujeediin rafashadii ugu dambaysay ku jiraan markii soomaaliya la arkay marka maxaa lalahay khawaarij ay ka adkaatay ee caalamkana cilaaqaadkii ay la lahayd ay soo nuqsinaysa oo cunuqabateyntii maxaa laga qaaday deentii laga cafiyey bariga afrika aan ku biirnay iyo ururo kalena aan u baraasannahay ayaa haddana waxaa la isku dayayaa in soomaaliya si kale loo mashquulin marka cadow walba ee soomaaliya isku daya khaarij iyo gudaha waxaan leenahay waxay ku jiraan riyo dhalanteed ah qof soo jeeda oo riyoonaay way marka soomaaliya shacabkooda way isku duubiyiin male way joogaan waxaa waaye haddii annaga aan isku duubannahay cid wax naga qaadi karta habba yaraatee ma laha sawdiyaaru ma inaan isku duubanaan sawdiyaaru ma inaan wada shaqeyn shacabow waxaa la dhahaa ta korahooda koyta ta hoose wallaabe sideeba haddii malaraayi musiibo kora koyta tan hoos war hilmaame markaan kasta yaro unayn dhahayd meel isku dhignayn tan soomaali ka dhaxaysa ee maxaa la dhahaaye aan ilaashana adduunkana hal il aan kula fiirin haddii aan malaysannahay waxaa la dhahaa shimbiray afka barkoonjeeday baalka biyo reebay shimbirta xitaa haddii afkeeda hal meel ugu jeedo baalkeeda biyo reeba soo maahan marka soomaaliya hadday malaysan tahay cid wax ka qaadi karta habba yaraatee ma laha soomaalida si walbay ahaata soomaalidii waay soomaalida si walbay daciif u ahaata soomaalidii waaye anaga waxaan dhahnaa libee lutooba ku go'naado loo fiigiyeelay marka soomaaliya si walbay ahaata looda maxaa lay ku soo xadgudbaysa way fiijinaya insha allah haddii ilaahay idma marka muhiimadooda waxaa waaye inaan anaga isku duwanaano midnimadeena adkaysano maxaa lalahay madaxdeena qaranka iyo ciidamadeena sharafta leh aan la wada shaqayn ciidamadan qof walba soomaaliya waxaa waajib ka ah oo duuli ah inuu ka qayb qaato amniga waddankeena waajib diini ah waay salaada kale laguma laha zakada laguma laha soo galay ma aha waddankan amnigiisa inaad ka qayb qaadatid waajib diini oo ku saaran waay marka waxaan rabaa waddankeena amnigiisa aan ka qayb qaadana waxaa la dhahaa foolka dhaway faytaanka jarta soo maahan suuxi markaad soo kacdid adoo fiishkaa ku yaala dad soo kacdid ku yaran soo ceeb maahan
هذا صوت نغتيت وصلنا في فسدنا هذا يتنقل تايمه ودن كان مركو حاول فوق هذا هو فتاة جرتوا ودن كان أمي سنة كشقينا أنا جاي تنا تسومهن بلنت أنا وحاول فوق هذا هو فتاة جرتوا ودن كان أمي سنة كشقينا ودن كان محل الله يرمك سنة كشقينا صومالي وحينون وغدا قولي فرمر إن شاء الله ودني عده أي عكس سومهن مالي بالي صومالي بالي وما سنتي وحالها أبوانكي وينا أبوان ترشوبي بدي دريك هايتي ملايكي دي ولاي عدوغو الضرب لغو دبدو كرس غو سلطنك بيوي دولي باهنايت ودنا يا دولي باهنايت بدي درينك هايتي ملايكي دي بلاي عدوغو الضرب لغو دبدو كرس غو سلطنك بيوي دولي باهنايت marka badeena dawlad u baahan tahay dawladana waa anaga waan difaacanayna هذا هو محسن بارك الله وحال سجوني وهم مهدعنا لا سلمي بالله ما شاء الله نبدا الناس يقولوا وحان مر لبعض المسجد عم مهدعنا تليمات عبد الرحمن وأكتفي من جيسيه صومالي قف مركو بنت لي أبانا وحاول قف مركو نولي هاي إنه ناقص الشيغواي تليمات وحان كنا غانا تليمات وحال اسكراعي صومالي اسكراعين إنه سنبين شيء صومالي إياه تليها وحو آمنسي أيو الشيغا تانا وحيديوت إنه جيسي هاي صومالي مركا تليها عاون وده فري حفلة القيمة بولنا مسلم مرة بعد صدحان وحنا وما سنت ضمان تلياشين وهري رولو تاغن إنه ودن كان عدو يكون دفاعان أيضا وحنا يقول بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته